mahadnaqayaa dhalinyarada garaalada duribaahiya waxaan u mahadnaqayaa dhalinyarada xisbiga kulmiye ee kongareeskan qiimaha leh ee sharafta leh soo abaabulay shirkan wuxuu xasuusinayaa sida imika loo abaabulayo siduu socdo waa sida shirarka kale ee gobolka iyo caalamkaba runtii loo abaabulay marka waxaan u hambalyeelayaa dhalinyaradii kasoo shaqaysa waxaan salaamayaa hogaanka xisbiga oo ugu horeeya gudoomiye muuse biixi iyo xubnaha kale xisbiga marti sharafta iyo ergooyinka gobolada jamhuuriyadda somalilan oo dhan ka wada yimid dhalinyarada rag iyo dumarba leh iyo marti sharafta kale shirka ka soo qayb gashay aad u salaamay topican cabdinaasir wiili oo laga hadlo waa topic aad u ballaaran waqtiga doonaysan wiilay maanta oo dhan waa la fadhiyay marka waxaan soo dayay inaan si runtii aad u koobo qodobayar taabto waxaan isugu jiraa xagga maalgashiga xagga halkay somalilan kamid mustaqbalkeeda siduu noqon karaa marka sida loo arkaa siyaasadaha kale ee mandaqada ama rijinka ama dunida ka jirana siday somalilan ula jaan qaadi karaysaa maxaa ka horeeya maxaa challenge oo jira fursadaha jiraasa maxay yihiin marka runtii waa arrimaha ballaaran waxaan jecelahay inaynu horta qeexno dhalinyarada statistics ama tirakoob rasmi inkastaan somalilan jirin haddana markaad eegto nidaamka qorshaynta ee dalka ka jira doorashooyinkii dalka ka dhacay iyo tirada kale ee xogta kale ee laga hadlay diiwaangelinta lahaa mujtamaca somalilan ilaa 4 milyan ayaa lagu qiyaasa dadka qorshaha xagga dhaqaalaha iyo maamulka la sameeya 4 milyan boqolkiiba 70 waa dhalinyaro dhalinyarada siyaasadda somalilan waxay ku qeexdaa wixii shaqayso jirka odaygoodii laga hadlayay madaxweynuhu intii qofka ku magacaabay dibadda waxa ahayd rag da-dooda ilaa 5 iyo wixii ka yarba isugu jira marka halkaa markaa la qiyaaso dhalinyarada ka hadlayna waa 2 milyan oo qof horey somalilan marka hadda waa tiradii somalilan mustaqbalka somalilan marka meel kale aan la tegin wuxuu ku leeyahay sidaynu u howlgelino sidaynu u dhaqaalayno iyo sidaynu ula shaqayno u tilmaamno 2 milyan iyo barka reer dhalinyarada reer somalilan sidaynu u maamulo ayuu mustaqbalka somalilan ee siyaasad iyo dhaqaale iyo nabadgelyo iyo waxaliba runtii halkaasay ku celiyeen su-aasha waxa weeye maxaa xisbiga kulmiye u qorshaysan howlgelinta iyo jihaynta iyo kamaradhalinta himaadooda iyo rajada dadkaas leeyihiin mar haddii somalilan iyaga u xiran tahay horumarkeeda iyo dacilma maxaa sidee loo howlgelin su-aasha runtii sanadka koowaad dibeydkeenu wataa su-aasha waxaan xiganayaa kelmad gudoomiyuhu saaka khudbadiisii ku daray anigana speechkayga jirtaan laga sugay waxa weeye kalsoonida sidii loo abuuri lahaa confidence waxa la dhahaa kalsoonida dhalinyarada 2 milyan iyo barka somalilan ee halka ku nool in xisbiga kulmiye uu dhiirigeliyo sidii kalsooni loo beeri lahaa kalsoonidaasoo ilaa ka ilaalinaysa inaanay badaha isku tuman inaanay isrin iyo inaanay ku gelin kooxa xagjira oo mushkilad xagga amniga mandaqadan iyo adduunkaba ku haya waxaasoo dhan waxaa koobsaday wax ka qaban kara waa kalsoonidu kalsoonidu waxay noqonaysaa mid ka qaybgalka maamulka siyaasadda iyo khayraadka xukuumaddu ay ku fadhido wuxuu noqon karaa mid ah in mustaqbalkooda dambe rajo la geliyo inay talada dalka wax ku yeeshaan iyo in qorshayaasha dalku leeyahay lagu xisaabtamo xoogooda iyo tacliintooda markaan intaa ka imaado waxaan aad ugu dheeraadaa midda maalgelinta inaan kelmad ka idhaa maalgashiga ajnabigu waa fura ka mid a furayaasha dhaqaalaha furaha laakiin furaha waxaa ka horeeya sida dowladdu ay isticmaalaysa dakhliga dalka ka soo gala intee uu leeyahay inta loo aloodaranyahay dhalinyarada ama tacliintooda ha noqoto ama dhaqaaleeda ha noqoto ama shaqogelintooda ha noqotay waa in xukuumaddu ay iyo xisbiguba iska xilsaaraan in dakhliga iyo khayraadka dalka soo galay in mucayana oo ka turjumaysa baaxadda ay leeyihiin iyo future ay doonayaanba in badanka keedkarayo tacliintooda hirgelintooda iyo sidii loo weerin lahaa taas waa qodob laakiin taasi kuma hofna marka waa halka foreign investment uu ka soo gelayo matalan dekada berbero kale waxaynu imika u helay maalgashi caalami horta qodobka waxaan filayaa aad muhiim wuxuu aad loo wariyey siyaasiyiin kalaba asad hantidii qarankaa la wareejiyey ama afar badan baa lagaga tegayaa jiilka soo socda iyo dhalinyarada soo socota somalilan oo waxaa la
سميع معافى عندنا عندك كان عبير ما القش وعقولنا هذا أما قاتل أما هو ما القش حلو اللي تحمرها أما هو الله أما هو كرام لبسيه كده ندمنا نبي أما حط لك قاتل وهالشيء ما القش وكوكو سلام للبريليو سودانية يا إمام الحمد لله وهذا كده ما أرمي بطل ما أرمي عشوطة ما أدري كده راكب وحين تدخل لكن وحاجز ما القشيا وقولك له إن إفيش سيجارة كده له البريد مكان صرت تروح دري مكان خلق أنا كتير معه وحيوان يسمى لكن مشيش كان يقول مش خاصة إنه الخيرات فربنا سود وطاقة كلام أيام ورثة وعطاء الصعود إن كل كده تروح إلى إثيوبيا طريقين ورثة والعفو فربنا وقول إخوات مليون أربعة تاسين أي بعض جو وبعض هاي كشقينا الدنيا كشقينا هذا الشيء ما قدش يدور بها السياسة فرن أو تلك أجنبي وأجداد كل مريم ونقول يجري حلول الإسلام وشأن دفاعي هتدور الصينية وعين سيل الصينية وضد عايزين كل يدان يدرك مكان مكان طلاب يقول سواء ما بينهم هذا حرجينا فوق وكحب إن المكان اللي معتانه دولتي حكومتنا على سياستي يقولون الله فوق كلام ولا ما كشف إن دولت ما يقول تغير إما كلام كده ولا كلام وما هو ما يعتني ما قش دور سداء كده تتطبع وحواليها ما يعلم مركز لن تنير وإن الحكومة يرتاح وحين قف شخصي الحين هو المعشور كبحين بيه وتصرف الله وإن دولته ما يسود ذلك نوكا سومالنا أي مطلوب دولته دالها عندي مكان أنفعات كده يرغاليه حميل كرتا يستبعي كرتا عشوط كشف كرتا المكان فرصة دولته سيس سلاسل الدولة لغو المرأة وما القشنا وكل ذلك هذا الكلام إن دولة يشوف بهم يفاينانشال سكتور حق بدن أو الأحداث حق العقد المالي وست ترانسبارنت وفضل وأسعة ولما عملنا المعنى كلا يقول ما قشوا بها يحوي ضليا توبان وحفظ له رجعوا يدور كابتن في بيو كله ولسه كان سيد الغالط حقه ويانا فمالنا وطل فخر مع وطل مع خير قدر لنا سيد لنا سيد ما بلغ هذه وحملنا يعني توبان وسكيل ودون حقه ويانا هل كان كشفنا حوالنا لنا مركان مع لو بهاي كرسي دويو كهذا هي سياسة مناسبة مالكشة يريد يستخدم هذا التمادر يقدر تعمل سكيلز بلد هو مالكشة كابو بدلا نقالة هي هو مكان في عمل كان مادر محاجرة يعني كنت كلها هذا شيء قلت إسلام وعمل خاص سياسة جغرافية السودان وها ليسن سنين الملفر كذا سنين المطبعة كذا سنين المتلهين وجودها كذا إن أنا خطر كلهم سنين كذا خطرها يلي بعتوني سياسة توسعة أيقان كان يتطلب بعض المكان مركب واحد جعلنا نفهم كلنا ندرس سمعنا وحكمت هاي وحوالينا سبيتي أما تل سوماليا أو مامورة أو المهارسة سوماليا كملا كلنا شنال اسمه كدولة قوة سوماليا إثيوبيا كملا بطل سوماليا وإنجاب هاي مركب سياسة يقولون إنك تجمعني عن أن بدليل وصاحب تنمى ولا تنمى أيلو عامل الله يرلو بعمشت الله يرلو حريم مناسن الله يرلو وحي خاطره كلمة يانا لقى أيو كلمة تولاد روايتنا أيو كلمة إنت أمرك لقد تقول حكسي حرية كلها بريتي كوالي دولة بلد إثيوبيا جيبوتي كينيا السودان وريتي لينا كلمة بعمشت يضايقين يودوين بقى إنا نحمنا فيقولون بدر قرد قيم كلامه ويهدي سوق الحكمة من إلى السودان إلى السودان مكان متمر أنا عند سياسة دولة رفض يوحى مستقبل كبير الدنيا مع سوماليا ووطنها مع خطر سنين لأن سوماليا تشير يعني أما هي رشنا أما كشران وطمكنا وإن المكتب تقول أنه تراسلنا خطرها وحتك على إنه يذكر أرمها سياسة كأنه يحيي تلك تبدو معه استراتيجية يترمى أي كذا وحكى أمك هذا سوكرية فرطا وضربنا للجيران متقدم أن يكمل هاي وترك بكم وري
ودولة الإمارات كجرتو ودولة كمان إسلامية عربي ما كجران وحنا بركنا ترتب حاجة بضعة يدكدا دولة يمكدا غالي مستدرو الكيرة قبل أي وشنا على هاي مكدا تشايني يهيدا كوا بضعة وحي مصاصر من اللون مش كله ما يعني وضعس هي بدوي كهية تراي الأمور كويسة مركا إن أي معلمها تضمن الصلاة يسبب كان هذا الصلاة سومالنا وحكم الساعة السنة تجيو يلو شو اللي يسجع كي حبيت الدولة حرب كلها يلو بدوية الإسلام كلها تاينية بعضها يلو بعض سكين الدولة الجبال يكون فوق وكل السعودية وهكذا معي سومالنا وحي سيستم تكون مثل الكتاب وضمن قلب على اليوم التايوان يسكوا يقولون تايوان كمثل هي وضمن كلمة أبيع المسلم وعصرنا وحى أساس المبنية هالقريب تلبنا مليون يبرك الرئيس ومالنا المتعلمين جامعة كور بحي إلى أول شقية هل كان ناطر أنتوا رد بدنا نقول ربنا كفريا هاي كم هي وعن تايم كارسينيا كارسينيا بدومي وكهذا الكونفرنس كورس بدومي بكرة الكونفرنس وحنا وجهنا إلا صناعية السياسة ينقال أركتي هم قرنيسا وما قشر الله مريم والله مريم الدنيا السياسية اللي قلت تجمع والله مريم فرصة دخله يقوى كلام الله ما أمرنا يعني بكرنتي بركة هذا كي بسوقه وحن سؤال شو قلت بيسأل المدير وحي مستقبل كسومان نسدوك أنا مش أنا ما قدر مستقبل كسومان يعني هني إفيا وموريا وحن كل سنة يا سنة لو قريت كان يلا هي سنة وقت الجنو استدلال القارئ هي السياسة هي الميليتري الدنيا كسر وسومان لم تجيا هل تقول سومان دولة الروس وعساسات الدراسات كون ويدروا إيش ضربكي أحيلك نبدأ يحيلك كلام الناس قبل واحد وعلى هذا وعلى كلامك كوبا يقولون زين الخاصة ما كل ده يقولون أنا ما فرضنا باي ريفيس بجرو الغلط حق صوماليا markay Soomaaliya ku qoreen waxay dhahaan especially Soomaaliland oo imka maamul aan dunida aqoonsan ku jiro laakiin halkii ugu weynay ee dowladda Ruushka ay ku lahayd saldhig military iyo saldhig mukhaabaraad military waa arrimo xukuumadaha soo socda ee Soomaaliland u yaala in lagu darsado qorshaha siyaasiga ee Soomaaliland soo dhigaya frontka geopolitics-ka rijinka iyo caalamka. Assalaamu calaykum.